wax kasta oo ay ka dhigan tahay dabaaldegyada maalinta guusha ee Ruushka ee ku beegneed 9 bisha May ma ahan guul qusaysa dagaalka Ukraine ee waa guul ku qotonta dagaalkii Naziga ee Hitler uu la galay Ruushka iyadoo aan xitaa loo eegin sawirka ay bixinayaan Putin iyo aqalka Kremlin-ka sida lagu eegayo mid ka mid ah maqaalada ugu sarsareeya dunida. Dagaalka Ukraine waa mid uusan Ruushku ku guuleysan karin marka la eego dhinacyada kala duwan. guulaha militariga shisheeye ee Putin uu ka gaaray caalamka 2008 waxaa sahlay adeegsiga cutubyo yar oo kooban oo ciidamo caan ah oo calooshood u shaqaystayaal ah iyo kooxo maleeshiyaad maxalli ah oo garab ka helaya diyaaradaha dagaalka Ruushka oo duqeyn culus fulinayay. Arrintani waxay siisay Moscow awood weyn muddadii lagu guda jiray faragelintii Georgia ee sanadii 2008. gobolka Nagorno-Karabakh, dalka Suuriya, Liibiya, Mali iyo 2 jeer oo Ukraine ah oo ah sanadii 2014 ilaa haatan oo ahayd markii ugu horeysay oo sharci darro ah ay ula wareegtay gobolka Crimea kadibna uu halkaasi ka abuuray oo uu kaga dhawaaqay dowlad goboleed Ruushka gacan saar leh sida dowlad goboleedyada Luhansk iyo Donetsk ee ku yaala gobolka Donbass. Ruushka ayaa wajahaya dagaal culus. Xaalad kasta, Ruushku waxa uu u dhaqaaqay si degdeg ah oo naxariis darro ay ka muuqato marka lagu eego indhaha reer galbeedka oo suurtagelin weysay inay ka jawaabaan reer galbeedku dhacdooyinkaasi marka laga reebo cunaqabateeno tartiib ah kuwaasi oo gaaray ilaa 6 cutub kuwaasi oo aan qudhooda waxba ka bedelin xaqiiqda jirta. Putin waxa uu ku xeeldheer yahay inuu dhulka ka abuuro marxalado cusub isagoo ka dhiganaya hub uu kaga gaashaanto tallaabooyinka galbeedka. bishii Febraayo waxa uu sameeyay isku daygii ugu weynaa oo ku doonayay inuu kula wareego guud ahaan dalka Ukraine muddo 72 saacadood ah. waliba wadan ay ku nool yihiin 45 milyan oo qof isla markaana haysta dhulka labaad ee ugu weyn Yurub waxayna ahayd khamaar la yaab leh oo aan taxadar lahayn waxayna gabi ahaanba fashilantay isbuucii ugu horeeyay ee dagaalka. Putin hadda waxa uu haystaa fursado yaryar oo aan ahayn in uu hore u sii socdo si uusan dagaalkan u sii balaaran ha ahaado mid ka weyn Ukraine ama ha u sii gudbo xuduudihiisa. xaaladahan ayaa looga odoros qaadan karaa waxa hadda ka taagan Yurub ayaana waxay gaartay waqti khatar ay taariikhdeeda ku ah taasi oo ay tahay inay u midowdo waa haddii ay doonayaan inay ka hortagaan dagalaha uu maleegayo Putin kaasi oo ku andacoonaya in xuduudihiisa loo soo dhawaaday. kadib ku guuldareystaha qorshaha koowaad ee ahaa inuu qabsado dowladda Kiev, madaxweyne Putin xitaa ka hor inta aysan ka jawaabin ciidamada madaxweyne Zelensky ama dunida kale, Moscow ayaa si degdeg ah u howlgelisay qorshihii labaatani waxay ahayd hab militari oo dheeraad ah si ay u hareereyso Kiev isla markaana ay dib ugu yaraato ama dhibtoodu ay uga yaraato ee qabsashada magaalooyinka kale sida Kharkiv iyo sidoo kale magaalada lagu magacaabo Kharkiv, Sumy iyo sidoo kale gobolka Donetsk, magaalada Mariupol iyo sidoo kale Mykolaiv magaalada la yiraahdo. balse sidii la moodayay waxuma aysan dhicin oo waxa uu Ruushku la kulmay iska caabino uusan filanayn duniduna ay la yaabtay. tani sidoo kale oo ku guuldareystay magaalada Kherson ayaa ahayd magaalada kaliya ee ugu weyn ee hoos timaada maamulka Ruushka waxaana tan iyo markaasi ay sii waday iska caabinta maamulka Ruushka. xaqiiqdu waxay tahay in ciidamada Ruushku aad ay u yaraayeen si ay u maamulaan wadan sidaas u weyn waxayna sameeyeen tallaabooyin habacsan oo ay ugu wacan tahay inay si xun loo hogaamiyay waxaana lagu kala firdhiyay ilaa 4 jiho oo kala duwan min Kiev ilaa Mykolaiv iyada oo aan lahayn talis guud oo ka wada amar qaataan. ciidamadani ayaana waxa la isugu xirxiray si cutub ah si ay u wajahaan weerarada kooxaha abaabulan ee Ukraine iyo sidoo kale ciidamada Ukraine oo u kala jabjabay kooxo yaryar oo gooni u goosato camal u dhaqmaya kuwaasi oo wada dagaalka wadooyinka jabhadna u diriraya iyagoo ku qalabeysan gantaalada garbaha laga tuuro ee loo yaqaano hubka fudud kuwaasi oo ay ku dhufanayaan taangiyada iyo sidoo kale gaadiidka gaashaamada ee Ruushka. waxaana gantaaladaasi ka mid ah gantaalka casriga ah ee uu farsameeyo ee dalkaasi Ingiriiska shirkadda laga leeyahay waana gantaalka Javelin la yiraahdo galbeedkana aadka looga adeegsado. waana gantaal jiheeya marna awood u leh inuu ka diso dhammaan waxyaabaha adag ee ku dahaaran taangiga Ruushka. waxaana la arkayay iyada oo dhowr meelood bishii ugu horeysay lagu beegsanayo taangiyada Ruushka. gantaalkan ayaana sababay in uu fashiliyo weerarada ciidamada Ruushka ee magaalooyinka qaarkood. ciidamada Ruushku waxay dagaal la galeen ciidamada Ukraine si wanaagsan u tababaran kuwaasi oo doonayay inay ka hortagaan weerarada Ruushka. niyad jabka Ruushka waxa uu gaaray waxaana hadda uu ku qasban yahay inuu sameeyo qorshaha saddexaad ama qorshaha C. qorshahaasi waxa uu yahay inuu ka tanaasulo Kiev iyo waqooyiga
oo ah halkii uu ku ururin lahaa dhammaan ciidamadiisa weeraro waaweyn oo ka dhacay gobolka Donbass iyo koonfurta Ukraine. Malaha waxa uu diiradda saari doonaa Putin dhinacyo kale oo uu arko in guusha ay jirto. Astaamaha muujinaya qorshahani waxaa ka mid ah in dagaalka hadda loo weeciyey agagaarka bariga sida magaalada Izium iyo sidoo kale tuulada lagu magacaabo Bosha iyo sidoo kale magaalooyin kale oo ay ka mid tahay magaalada lagu magacaabo Baraskiv. Ujeedooyinka muhiimka ah ee Ruushka waa inay qaataan gobolada yaryar ee ku yaala koonfurta ee lagu kala magacaabo Slovansk iyo sidoo kale magaalada yar ee iyana lagu magacaabo Kramatorsk. Labaduba waa qodobo istiraatiijiyadeed oo muhiim u ah gacan ku haynta gobolka Donbass si looga ilaaliyo weerarada ka imaanaya koonfurta. Dagaalkani waxa uu gudbay waji ciidan oo ka duwan kii hore, waxaana gacan ka geysanaya ciidamo gaashaaman kuwo wata hub culus iyo cimilada lafteeda oo ah mid wanaagsan. Guul kasta oo military oo Ruushku gaaro oo la taaban karo waxay u badan tahay inay abuurto kacdoon weyn oo furfuran oo kasii weynaan doona tallaabooyinka hore loo qaaday, waxaana haatan la qorsheynayaa in Ruushka lagu soo rogo cunaqabateyn ballaaran. Putin waxa uu sameeyay bishii Febraayo isagoo wata qorshaha wax lagu tilmaamay hab aan suurtagali karin, waxa uuna doonayay fashalka arrintan waxa ay ka dhigan tahay in qorshaha B iyo C ama qorshayaasha xiga ay ku dhamaanayaan Ruushka oo jabay. Waxaana la leeyahay Ruushka waxaa hadda la gudboon in dagaalka uu sii wado ama uu la yimaado qorshe kale oo ka badbaadin kara fashilka, maadaama dowlad sida Ruushka oo kale ah aysan aqbali karin fashilka. Ilaa iyo inta Kiev ay ku adkeysanayso go'aankeeda ka bixitaanka Ruushka waa inaan laga fiirin wax tanaasul ah. Ma jiraan wax badan oo Putin uu qaban karo. Xaaladaha ayaa sii xumaanaya, wadaha reer galbeedkuna waxay sii wadi doonaan inay hub iyo lacag ay siiyaan Kiev, mana qaadi doonaan cunaqabateynada xooggan ee Ruushka waqtiga dhow. Marka uu ku tiirsanaanta tamarta Yurub ee waxyeello ayay gaarsiin doontaa Ruushka. Mareykanka iyo Yurubna waxa ay gaari doonaan heer laga maarmo Ruushka saliidiisa. Mana jirto dib in loogu noqdo Vladimir Putin shakhsi ahaan, waxaana laga yaabaa in xitaa lagu soo rogo dambi dagaal ama lagu soo oogo dambiyo dagaal. Istiraatiijiyadiisa siyaasadeed ee kaliya ayaa ah in dagaalka Ukraine uu u yeelo waji kale, qayb ka mid ah halganka loogu jiro badbaadada Ruushka ee ka dhanka ah Naaziyiinta iyo reer galbeedka oo doonaya in la helo fursad ay hoos ugu dhigaan Ruushka, ayaana horseedi karta caqabado kale oo dunida inteeda kale ay la kulanto. Fikradda ka dambeysa dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine waxaa loo arkaa khatar uu Ruushku faraha la galay, waxaana uu u muuqdaa madaxweyne Putin mid sheegan doona dhammaadka dagaalka inuu afka ku arko dhammaadka god aad u madow oo dheer oo dalkiisu uu hagayay waa haddii uu ku guuldareysto dagaalkan. Hase ahaatee dhanka kale markii laga eego haddii suuragal ay u noqoto ciidamada Ruushka inay fuliyaan awaamiirta la siiyay ayna si dhow oo daqiiq ah ama suuragal ah ay u fuliyaan dhammaan qorshayaasha loo dejiyay oo ay kusoo afjaraan muddo kooban, Ruushku waxa uu heli doonaa gacanta sare isagoo miiska wadahadalka iyo madaxafyada waaweyn ee lagu gorgortamo siyaasadaha caalamiga ah la tegi doona in dalka Ukraine laga masaxo dhammaan waxyaabaha uu doonayo, oo ay ka mid tahay in dalkani lagu dari karin midowga Yurub iyo gaashaanbuurta NATO, si la mid ahna aysan kasoo agdhawaa karin xuduudihiisa oo aan lagu tababari karin ciidamo reer galbeedka fikir ahaan aaminsan Ukraine ay qaadato fikirka neutraalka ama dhexdhexaadka oo ay dhexdhexaad ka noqoto dhammaan dhinacyada isdiidan ee galbeedka iyo bariga.